wabarakaatuhu daawadayaal galab wanaagsan meel kastoo naga daawanaysaan halkan waa ETV kusoo dhawaada warkii telefishinka qaranka Itoobiya oo idin waramaya anigoo Nasruddin Xasan warkii oo dhameystiran deegaanka Oromiya ayaa waxaa ka socda hawlo lagu hirgelinayo dhanka damaanadqaadka cunnada iyada oo laga faa'iideysanayo waraabka masnooyinka lagu beerayo qamadiga soo ku waramaya wariyaha ETV Xamdi Maxamed deegaanka Oromiya oo dadaal ugu jira wax ka qabashada qamadiyaraanta dalka ka jirta ayaa wada hawlo ku horumarinayo dhul beereed ka badan 300,000 oo hektar oo lagu beerayo qamadiga waraabka ku baxa si loo gaadho isku filaansho dhinaca cuntada ee dalka deegaanku waxa uu sheegay in wareegii koobaad 160,000 oo hektar oo qamadi ah la beeray kuwaas oo looga faa'iideystay waraabka masnada haddaba madaxweynaha deegaanka Oromiya Shamalis Abdiisa oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka kala socda dawladda federaal iyo deegaanka Oromiya ayaa booqasho hawleed ku maray beeraha qamadinka oo qorshahani qayb ka ah oo ku kala yaala degmooyin kala duwan oo ka kala tirsan gobolka Arsi beeraleyda gobolkaasi ayaa si qoomameyl la uga hadlay iyagoo ilaa iyo imika aan hab wanaagsan uga faa'iideysan ከድንች የስንዴው ምርት እንደሚጠቅመን ተገንዝበን ያሳለፍናቸው ጊዜዎች ሁሉ እየቆጩን ነው ያሉት beeraleydan ayaa tilmaantay wax soo saarka baradhada ee hadda ka hor ay ku hawlanaayeen uu ka munaafacaad badan yahay wax soo saarka qamadiga oo ay ka qoomameynayaan waqtigii hadda ka hor kaga lumay beeraleyda ayaa intaasi ku dartay inay ogaadeen in qamadinka xilli roobaad iyo kanjilaalka soo go'a ay aad u kala duwan yihiin wasiirka beeraha ee federaalka Umar Hussein ayaa booqashadaasi kadib sheegay in shaqooyinka socda ee lagu doonayo in dalka gudihiisa laga soo saaro qamadin galaya badalka kan dibadda laga soo dejiyo oo tan deegaanka Oromiya ka socotaana ay qayb ka tahay iyadoo durba natiijo wanaagsan laga arkay በ3 አመት እስከ 4 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ ከውጭ የሚገባውን በአመት ከ500 እስከ 600 ሚሊዮን ዶላር የምናወጣበትን ማስቆም ነው ትልቁ ሀገራዊ ዓላማው wasiirku waxa kale oo carabaabay in muddo 3 ilaa iyo 4 sano gudahood ah lagu guuleysto in sanad walba la badbaadiyo 500,000 ilaa iyo 600,000 milyan oo dollar wasiirka ayaa tilmaamay in iyadoo ujeedada ugu weyn ay tahay in arintaasi iyada ah lagu guuleysto arintaasina loo xil saaray deegaanada dalka oo dhan uu deegaanka Oromiya durba natiijo wax ku ool ah ka soo hooyay arintani madaxweynaha deegaanka Oromiya oo goobtaasi hadal ka soo jeediyay ayaa cadeeyay in habkii soo jireenka ahaa ee soo jiray uu noqon waayay ku saboolnimada lagaga baxo oo ay beerashada qamadinka ee waraabka loo adeegsanayo ay tahay waxtar aan ku koobnayn kaliya dhinaca damaanadqaadka cuntada balse ay abuurayso fursado shaqo abuur አርሶ አደሮቻችን ሐሳብ ካለ ተአምር መስራት እንደሚችሉ አይተናል እንግዲህ አሁን ከድህነት ውስጥ መውጣት የምንችለው በተለመደ መንገድ አይደለም madaxweynuhu waxa uu intaasi ku daray in deegaanka Oromiya oo kaashanaya dawladda federaalka uu dadaal xooggan ugu jiro hanashada yoolkani la hiigsanayo wahagaag wali waxaad daawanaysaan warkii telefishinka qaranka oo idinka imaanaya Addis Ababa bombaleyda magaalada Addis Ababa ayaa waxay cabasho ka muujiyeen shidaal yarida magaalada ama caasimadda dalka ee Addis Ababa ka jirta wariyaha ETV Cabdullaahi Rabbi ayaa soo jeedinaya بس aan saat kuleel malawnay ugu yaraan hal saac iyo badh ayaan meesha joogay waxaan baajiyay shaqooyin kala duwan oo isugayay aan saat kul balay warafaaga jid adbaqna lana saat hal saac iyo badh in ka badan ayaan safka ku jiray arintani hal toddobaad ayay socotaa sababta ma aan fahmin ከጠዋት ጀምሬ እዚህ ወረፋ ይያለሁ waxaan safka ku jiray laga bilaabo saaka anigu waxaan isticmaalaa kaarka loo yaqaan Abyssinia waxaa lagu bixiyaa lacagtiisa muddo bila waxaa leegu yiri kaarka ma ogolaanayno haddaba waxaan doonayaa inaan safka ka baxo ilaa 2 saac in ka badan ayaan sugayay 12 saac leeyay meeqaad iskaw manum nagar ila 12 saac ayaan imid laakiin ilaa waqtigan la joogo wax shidaal oo helay ma jirto arintu aad bay u adag tahay baryahan dambe waxaa magaalada Addis Ababa ka muuqda safaf dhaaf dheer oo baabuurleydu ay shidaalka ku sugayaan kaalin walba shidaal waxaa ka muuqda dhibaatooyin noocaas ah markana wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga xafladda dufcadda 11aad ee ciidanka gaarka ee booliska dawladda deegaanka Soomaalida oo lagu qabtay xarunta tababarada booliska ee ku taal degmada Barqood ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa loo sameeyay xafladdan dufcaddii 11aad ee ciidanka gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida loo tababarayo
madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabadda xafladda qalinjabinta ee ciidanka gaarka ayaa ugu hambalyeeyay marka hore dufcadda 11aad ee ciidanka gaarka dowladda deegaanka Soomaalida waa kan madaxweynaha oo ka hadlaya khudbadda uu ka jeediyay xafladdii dufcadda 11aad ee ciidanka gaarka ee booliska dowladda deegaanka Soomaalida xarada tababarka ciidanka ee gaashaale khadar ayaa maanta tababar loogu soo xiray in ka badan 3200 askari oo muddo 4 bilood ah tababar ku jiray kuwaasi oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida xafladda qalinjabinta ciidankani waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar hoggaanka nabadgelyada Dr. Xuseen Xaashi Qasim mas'uuliyiinta sare ee hay'adaha amniga iyo marti sharaf kale mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaana salaan sharafeed ka gudoomay ciidanka xilli ay soo bandhigayeen gaardiciyaar aad u qurux badan oo jaan iyo gacan la isla helay asun lagu qooshay kolbay malab iyo dawo ku noqota madaxweynaha oo mahmahdani soo qaatay ayaa sheegay in ay kala socnaadaan qaabkii lagu aasaasay ciidanka xoogga gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo qaabka uu yahay maanta ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka Soomaalidu qaabkii lagu aasaasay iyo qaabka uu maanta yahay in aan kala fahanno ayaan u baahanahay waxaad ogtihiin in 27 sano ee xukuumaddii TPLF dalka ay ka talinaysay kooxdii juntada ahayd waxa ay aasaasisay istaraatiijiyo ama qaab dhismeedyo shacabka loo ekeysiinayo inay u adeegayaan laakiin danta laga lahaa ay ahayd in shacabka ay dhibaateeyaan iyo taariikh kasta oo ina soo martay oo ahayd taariikh foolxun oo wiilal Soomaaliyeed inta qori la isku leynayay laba walaal isku dilayeen maanta waxaan taaganahay fursad xooga gaarka ah ee ciidankinu ay yihiin kuwa kaliya ee badbaadin kara dowladnimadeena iyo shacabkeena waxa kale oo cad in maanta deegaankeenu uu galay marxalado doorashooyin in doorashooyinkaas ayna qayb ka noqonin dacayaadka ciidanku waxaan ka codsanaynaa ururada mucaaradka iyo ashqaasta mucaaradka ee xukuumadda siyaasadda xukuumadda dhaliishan inay ogaadaan ciidanku inuu yahay khad cas oo ka caagan dacayaadka siyaasadeed iyo isku riryaha ma ka waantoobayaan ma qabo inay ka waantoobayaan waayo waa hay Soomaalidu tahay baadida niba kula deedeeya daal ka badan oo aan rabin inaad heshaa daa'im abidkaay dadka siyaasiyiinta isku sheegaya deegaankeeda Soomaalidu ee mucaaradka hadda sheeganaya badankoodu kulligood ma badankoodu waxa ay ku astaysan yihiin inay ahaayeen dad ka qayb qaatay dhibaateynta shacabka ugu dambeyn waxaan mar kale idinka maadnaqayaa ciidanka xoogga gaarka ee maanta qalin jabinaya sida wanaagsan aad u qaateen tababarkiina akhlaaqdii aad muujiseen waxaan idinku boorinaynaa inaad gacmaha isqabsataan idinkoo ciidan ahaana in akhlaaqiyaadkii ugu wanaagsanaa ciidankan aan ku aragnay intii aan xilka la wareegnay oo ahaa ciidan isu danqada oo qabiilkoodu uu yahay xoogga gaarkaanu nahay inaad sii wadaan in waxaa dhaawacaya siyaasiyiinta iyo social mediahan awal ayaan arki jiray laakiin maanta idinku soo batay inuuna noqon mid idin haga taliyaashiina ha idin hagaan Facebook in idinka haga maaha waa in taliyaashiina idin hagaan wixii su'aalaad qabtaan iyo dooda halkaa geysaan ciidan noocaas inaad noqotaan waa muhiim maanta fursad wanaagsan baa jirta oo shacabka Soomaaliyeed isugu soo danqanayo oo aag walba ciidankan loo arkay ciidankoodu inuu yahay dawladdiina ay tahay dawlad balaaratay oo gaadhay meel walba inta waxa dheer ciidankani wuxuu diyaar u yahay inuu difaaco shacabkiisa xukuumaddan waxay diyaar u tahay in ciidankan ay u adeegsato inuu kaliya ku koobnaado difaacidda shacabka Soomaaliyeed danahooda taana waan sii wadaynaa hadda ka horna waanu sheegnay dhul Soomaaliyeed
in cid kala qaadato ma ogolin shacab Soomaaliyeed in cid kala guulaysato ma ogolin labadaas waan ku celinayaa dhul Soomaaliyeed cid kala qaadato ma ogolin shacab Soomaaliyeed cid kale inay guumaysatana ma ogolin labadaasi 70 sanadood wixina soo daashaday ee isha noo yeelay weeyaan sidaa daraadeed waxaad ku kalsoonaataan xukuumaddan inay ahayn xukuumad kuraas iyo masab ku raadinaysa markaan ka hadlayno qadiyadda Soomaalida waxaan diyaar u lahay ilaa iyo nafurid ma aha ciidanka kaliya naftiisa inuu huro ciidanku naftu hurayaal weeyaan siyaasiga ma huraya maaha waxaan diyaar u nahay naftanada inaan u hurno dhibaato walba aan u marno shacabka Soomaaliyeed karaamada iyo sharafta aan la maaganahay ama aan la rabno inay helaan taa in lagu kalsoonaado ciidankuna uu ogaado ayaan rabnaa ugu dambayn ciidankan waxaa la yiraahdaa ciidanka xoogga gaarka ah liyu boolis lama yiraahdo luqadeena aan isticmaalno ciidanka xoogga gaarka ah baa la yiraahdaa deegaanka Soomaalida maanta laga bilaabo waxaan rabaa maadaama aan luqad leenahay luqadeena inaan ku faano oo waxaan isugu yeelana magaceeda uu noqdo ceeb ma aha qofkii afka ay kaga dhacdo inta uu la qabsanayo dhibaato male laakiin ciidanka xoogga gaarka ah ayaa taqaanaan saraakiishuna ay taa qaadato xoogga gaarka waxaan aad magac ku akhriyaysaa kale magac ka duwan kan ma aha waa luqad kale wagaag geestooda hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida iyo taliyaha ciidanka xoogga gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay ugu hambaliyeen ciidanka munaasabadda qalinjebinta ee ciidanka xoogga gaarka loo sameeyay guusha ay gaareen tobabarka ciidamada loo fidinayay muddada 4 bilood warkan aanu ka helnay wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida ee SRTV hanu gudubno waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka uu tababarku u dhamaaday oo dhab ahaan muujiyay in ay yihiin wadaniyiin markii ay xadan imanayeen oo ay rabaan in ay ku biiraan ciidankan xoogga gaarka ah oo ah ciidan uu shacabkeenu ku dhaato wadaniyadaas ay muujiyeen oo ah inay dhiigooda iyo dhacaankooda u huraan dadkooda iyo dalkooda ayaan ku bogaadinayaa waxaan leeyahay hambalyo qodobka koowaad ee ay tilmaamayso munaasabadani waxa weeye ka go'aanshaha ay dawladdu ka go'an tahay in ay dhisto cudud ciidan oo sugta amniga dawladda deegaanka Soomaalida hadday noqoto gudaha iyo hadday noqoto xuduudahaba waxaan u adkaynaynaa oo kor u qaadaynaa tirada iyo tayada ciidanka waayo waxaanu aaminsanahay in tiirka ugu weyn ee nabadda ee deegaankani ku taagan yahay uu yahay ciidanka xoogga gaarka ah waxaa kale oo ay qalinjebintani tilmaamaysaa in shacabku uu lexjeclo ka leeyahay ciidanka xoogga gaarka ah oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii ay u soo direen xeradan si ay uga mid noqdaan ciidamada halyeeyada ah ee halaca ah ee meeshii ay tagaan iyo hawshii loo diro si mas'uuliyadu ku dheehan tahay oo ay ku dheehan tahay ilaalinta xuquuqda shacabka u guta waajibaadkooda shacabku wuxuu muujiyay taageero dhab ah iyadoo laga tusaale qaadan karo sida ay ciidanka u soo dhaweeyaan ay ugu loogaan ay u yimaadaan qalinjebintooda hadda waa kuwa la jooga waxay muujinaysaa in ay dhiirigelin u yihiin ciidankeena waxaan ku soo koobayaa laba dardaaranka aan siinayno ciidanka tababarka dhamaystay waxa weeye waxaan ku kalsoonahay in aad waajibaadkiina gudan doontaan oo ah in aad ilaalisaan xuquuqda shacabkiina ilaalisaanna amniga deegaankeena gudo iyo xuduudba oo sidii lagu heesayay meesha aad ka howlgashaan aad halac ka muujinaysaan cadowgana uu ka caagayo shacabka waxaan farayaa in la sii wado taageeridii aad taageerayseen ciidamada waana arrin bogaadin mudan shacabka la'aantii dowladnimadu way wiiqmaysaa marka aad ayaan uga faraxsanahay shacabku in uu kaalintiisa qaadanayo
mudanayaal iyo marwaliyaal waxaan idin sheegaynaa ciidankan xooga gaarkii inuu lafdhabartii nabadgelyada iyo horumarka uu yahay kilkeenu hadda ka hor suu ahaa iyo isbeddelka kadib siduu yahay nabadgelyadiisu iyo amnigiisu siduu ciidankan uu sugay waxaan leenahay ciidanka xooga gaarkii amaradii iyo amaamirihii ay dowladdu siinaysay siday ahayd ayuu u gutay hadda kadibna uu gudanayaa marka waxaan soo dhawaynaynaa intii isbeddelku dhacay waa markii labaad ee qalin jabintan oo kale la sameeyo sanadkii hore 3,000 oo askari ayaa harada garab case ku qalin jabisay imikana 3,217 askari ayaa halkan ku qalin jabinaysa maanta taas waxay caddaynaysaa dowladda uu madaxweyne Mustafa hogaaminayo iyo maamulkiisa suuban inay ciidanka hagar la'aan wax walba xooga ay saartay sida ciidankan u tayeyn lahayd sida nabadgelyada loo ekeyn lahaa siduu ciidankani tayo iyo xoog iyo sumcadba u yeelan lahaa waddankiisa uu u difaaci lahaa dowladdu hagar la'aan inay wax walba xagga ciidanka marisay ayay ku tusay wahagaag halkani waa ETV wali waxaad daawanaysaan warkii galabnimo ee telefishinka qaranka Itoobiya warbaahinada kala duwan ee gaarka loo leeyahay ayaa ugu baaqay asxaabta siyaasadeed ee ku tartamaya doorashada lixaad ee dalka ka dhacaysa in ay si habboon uga faa'iideystaan saacadaha loogu talagalay in ay laga baahiyo ololaha wacyigelinta ama barnaamijyada siyaasadeed ee asxaabta siyaasadeed ay ku loolamaya doorashooyinka lixaad ee heer qaran soo ku waramayo wariyaha ETV Xamdi Maxamed warbaahinta kala duwan ee dadweynaha ayaa wada tababaro isla goobta shaqo ay wariyeyaashooda ku siinayaan oo wariyeyaashooda ka caawinaya inay hab xirfadda wariyanimada ku salaysan ay shacabka ugu tabiyaan howlaha la xidhiidha doorashooyinka lixaad ee dalka mudane Adam Taadhas oo ah madaxa xafiiska Fana Broadcasting Corporate ahna xubin ka tirsan miiska arrimaha doorashooyinka ee Fana ayaa sheegay inay hay'adiisa golaha qaranka ee doorashooyinka iyo wakaaladda warbaahinta Itoobiya oo iskaashanaya ay dadaal ugu jiraan in waqtiyada hawada ee qoondeeyay asxaabta siyaasadeed ee doorashooyinka ka qayb galaya ay si siman oo salaxan ugu diyaariyeen መብቱ ያለው እነሱ ጋር ነው የአየር ሰዓት ተፈቅዶላቸዋል በዚህ mas-uulku waxa uu xusay in doorashooyinkii hore xisbigii talada haye iyo dhowr xisbi marka laga reebo ayna si habboon uga faa'iideysan jirin kuwa kale mudane Adam waxa uu asxaabta siyaasadeed ee tartamayaasha doorashada ka qayb galaysa ugu baaqay in qaladkii hadda ka hor ka jiray ay saxaan oo saacadaha hawada ee loogu talagalay sidii ugu habboon ay uga faa'iideystaan oo ay fariimahooda u gudbistaan mas-uulku waxa uu ka hadlay in waqtigan hawada ee asxaabta siyaasadeed loo diyaariyey aan ujeedo kale loo adeegsan karin sida awgeedna ay ka dhigtaan masrax ay ku gaari karaan codbixiyayaasha oo ay sidaasna ku kasbadaan codkooda sidoo kale mudane Dibabu Ballade oo ah maareeyaha guud ee idaacadda Ahadu ayaa sheegay in asxaabta siyaasadeed ay wax ka bartaan jiljileecii ay kala kulmeen shantii doorasho ee hore adaygii ay lahaayeen si xoojiyaan እሳት መለኮሻ የሆኑ አጀንዳዎችን sidoo kale mudane Fiqaadu Katame oo ah howlfuliye ku-xigeenka waaxda nuxurka ee wakaaladda wargeysyada Itoobiya ayaa tilmaamay inay si baaxad leh ugu adeegayaan dhammaan asxaabta ka qayb galaysa doorashada ያሁኑ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ሲባል ፍትሃዊ ይሁን ሲባል waxauna tilmaamay mas-uulku in talaabadan ay qaadayaan waxtar weyn u yeelanayso sidii doorashooyinku ay u noqon lahaayeen kuwa leh kalsoonida iyo ogolaanshaha shacabka dhanka kale wararka deegaanka Soomaalida ayaan ku guda jirnay shacabka tuulada Cadaadle ee degmada Gaashaamo ayaa iskood u dhistay dugsi sare kaasi oo door weyn ka qaadan doona adeeg bixinta dhanka waxbarasho ama geedi socodka waxbarasho iyadoo oo ay waqtiyadii hore shacabka ku nool tuuladaasi ay goobo fogfog u aadi jireen warbixintan waxaa noo soo diyaariyay wariyaha ETV Maxamed Maxamuud joogta u dhalatay qurba joogta iyo shacabka u dhashay centerka Cadaadda ee ka tirsan degmada Gaashaamo ayaa sheegay inay faa'iido weyn ka heleen dugsiga sare ee laga dhisay centerka Cadaadda waxaana sheegayaan faa'iidada weyn ee ay ka heleen inay tahay geed socodkii waxbarashada ee markii hore masaafo dheer ay u doonan jireen in ay si fudud ay uga heleen isla centerkooda qaar ka mid ah haddaba shacabka oo fikradahooda ka hadlaya iyo faa'iidada ay ka heleen iskuulkan marka hore imaka magac kale baa lagu sheegayaa laakiin anigu jidhuu gorsi waxaan u bixiyay miyi iyo magaalo
miyi iyo magaalo ayaanu bixiyey degmada maalin aan tagnay baan magaca ku dhawaaqay kolley waan filaya magac kale in loo bixiyey waaye haddii haddaba miyi iyo magaalo aan macneeyo waqti aan abaartii laga soo doogay oo dadku uu taal daran yahay ayaanu haddana hawaysanay inaanu kaa dhisno waxaanu u yeedhanay dad markaa qurba jooga oo idaa famila oo dadka u dhashay deegaankan dadkii deegaankan u dhashay halkanaanu ku shiray waxaanu isla qaadanay in qola kaayaba ay qaabisho qayb iyagu wixii dhismaa wixii kharashee kale waxaynay qaabilaan annaguna inaanu qaabillo dhiskiisii kale hawshiisii kale intay dhammaanteed leegtahay saasaan u qaybsannay sidii baa hawshii noogu fushay iyana kaalintooda ay uga soo baxeen annaguna taayadaanu uga soo baxnay waxaanu kaalintaa ugu badheeraya inaanu ku qabanayna waxay ahayd neef adhiya oo waxar yara oo soo dooga oo itaal daran iyo xoogga dadweynaha iyo maskaxda waxgaradka dadka dabada ka wada abaabulayay faa'iidadii aanu ka gaadhnay waxay noqotay marka hore inuu sidaa u dhismo midabkaa inuu yeesho taarkaa inuu yeesho inuu saas ugu xidhmo ujeeddadii aanu ka lahayn ee aanu ka gaadhnayna waxay noqotay ardaydii imika inay raaxa u fadhiisato 12 iyo intii dugsigii aanu cil qabnay sug hala gaadho wixii aanu dantii aanu lahayn ee dabadeeda aanu sugaynay waxay noqotay carruurteedu waxay u doonan jirtay dugsiga sare waxaan loo guri jiray boodhanka gaashaamo ayaa loo guri jiray taasaanu kaa kaaftoonno aanu hindisnay inaanu aqalladayada hortoodii ka samayno halkii gaashaamo looga daaburi jiray maanta ilaahay ma haddii aqalladayada hortoodii kanna way ka soo baxaan kanna way galaan faa'iidadaasaanu ka gaadhnay dadka wixii dee caynkaas kale mustaqbalkooda waxbarasho rajaynayana sidaas kale u rajaynayna waa la gaari karaa dadaal maxaa la yidhaha shacbaas waa gaari karaa waana dhaafi karaa haddii dadaal la sameeyo bulshadu iyo isku xidh oo maskax soo jeeda ay hesho oo dadka wax tusta kuwaas kale la qabsan karaa kuwaasoo kale ayaa la samaysan karaa iyo qaar ka sii badan haddii aan ka warbixiyo sidaan u dhisannay iskuulkan iyo waxyaabaha nagu kalifay marka hore dugsiga halkaa ka muuqda wuxuu ahaa 7 qol baa noo dhisnaa oo ah 1 up to 8 ama fasalka 1 ilaa 8 dabeetana waxaan ugu dhigan jirnay ilaa 11 mar halkaa ugu dhigi jirnay marka ardaydii waxay kala badh marka fasalada la isu qaybiyo bannaanka ayaan ugu dhigi jirnay marka hore qorraxdaa bannaanka ayay ardaydu wax ku baran jirtay dabeedna dhibta ardayda haysata markaanu aragnay ee aanu isna waxa kaga baxdaan ama ardaydii naga bixi jirtay oo tagi jirtay gaashaamo oo noogu sukaysay boodhanka iyo caare ardaydii markay iskuulkan ka baxda aydka waxay samayn jirtay arday badan oo yaryar ama hablale oo aan meeshii gaari karin waalidkoodna ku aamini karayn ayaa dhacay marka waxay dhacday inay iskuulka ardaydu ka dhici jireen oo ay drop out noqon jireen markaanu aragnay bacadka ardayda haysatay iyo khasaare waxbarashadii ku yimi ayaa waxaanu isku daynay inaanu halkan uga dhisno haddaanu bulshada ku noolnahay cadaadda iyo qurba joogtada u dhalatay halkan santarkan inaanu ka dhisno dugsi sare oo dhammaystiran oo ardaygu intuu kaa qolqolkaa ka yimaado uu qolqolkan u soo wareego oo halkan kaga baxo ilaa 12 oo waxa u hadhay ay noqoto uun jaamacad ilaahay wuu nagu guuleeyey waa ka arkaysaan waanu dhisannay hantidaanu ku dhisannay waxaanu u qaybsannay 2 meelood labadaa meelooda miyi iyo magaalo siduu ka dhawaajiyey maxamuud xaaji ciise marka qolaba waxay qaadatay qayb qolo waliba waxay noqotay maamulka Soomaaliya baa tiraa barbarku ka baxaa waa bakayla qaleen qolo waliba wixii laga doonayay ayay soo dhamaystirtay waa ka maanta ardayda shalay halka ka soo wareegtay banaanka fadhiisan jirtay alxamdulillah fasalada aragtayna soo kala jeeda ayay ku dhigtaan marka sababahan iskuulkan ugu kalifay inaan dhisano waa sidaas waxa imkana waxba naga dhiman iskuulku waa dugsi sare wuxuu baahan meel laababka hayd laboratoriyadii ardaydu markay theory-ga soo dhigtaan wixii practical inay indhahooda ku arkaan oo la taabsiyo
oo ay ka shaqeeyaan si wixii aanay ugu noqon theory ugu ay baraadka noogu helaan marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in la helo waxa ka dhiman ay ka mid yihiin ugu muhiimsan yihiin laboratoriyadii. halkani waa dugsiga sare ee centerka cadaada oo ka tirsan degmada gaashaamo. haddaba dugsigan sare ee aad arkaysaan waa dugsi ay iska kaashadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool centerka cadaada iyo waliba qurbajoogta u dhalatay isla centerkani cadaada. dugsigani waxbarashadu wax weyn ayuu kusoo kordhiyey bulshada, gaar ahaanna waa dugsiyada la asaasay isbeddelku kadib markii uu ka hanaqaaday deegaanka Soomaalida. arrintanina faa'iido badan ayay kusoo kordhisay waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool centerkani cadaada. dhinaca kale Dr. Abdurrahman Farxaan oo ah madaxa waxbarashada ee degmada Gaashaamo ayaa ka hadlaya geedi socodka iyo waliba dhismaha dugsigani centerka cadaada laga dhisay ee dugsiga sare ee waxbarashada. inaan eegno oo aniga iyo xafiiska waxbarashada degmada Gaashaamo iyo Ethiopian TV wax qabadkii bulshada ay wixii ay qabsadeen intii isbedelka ka dambeysay waxyaabihii u suuroobay san aragno dugsigan waa hadda aan joogno waa dugsiga sare ee cadaada. Suldaan Cawad ayaa loo bixiyay dugsigan maalinkan halka xariga kaga jarnay bay ahayd. dugsigan waa 9aad ilaa 12aad waxaa jiray marka caqabadaha ka jiray centerkan maadaama uu yahay centerada ugu ardayda badan waxa u suuroobi weyday waqtigii hore inay dugsi helaan. marka intii isbedelka kadib bulshadu iyada is abaabushay, iyada tashatay, iyada ayaa dhaqaalaheedii iyo hantideedii jeeb ka soo saartay, iyada dhisatay. annagana marka waxaan ka taageernay dhankii macallimiinta facility-gii iyo manhajkii iyo qalabkii wax lagu dhigayay. sidoo kale dugsiyada sare ee degmada ku yaala waa 7 dugsi, waa dugsi ka mid ah. marka dugsigani waxa weeyaan dugsi ay bulshadu abaabulka bulshada lagu dhisay. macallimiinta iyo maxaan ku dhahay tayeentiisa waa dugsi cusub sanadku bilaabmay. waxa weeyaan anagu marka qorshe ahaana wixii markuu cusub yahay xilli uu qaadanaya sidaan u dhameystiri lahayn facekiisa hore waan bilownay, macallimiintiina way ku qoran tahay. wixii dambana qorshaha sanadka dambe ee 2014 diyaar baan u nahay tayeentiisii iyo wixii anagu xafiis heer deegaan kaga xidhan ama heer degmo inaan dhammaystiro. marka waxaan anigu halkan leeyahay dhanka abaabulka shacabka marka loo eego isbedelka waxaa laga dareemi karaa in bulshadii ay tashatay iyaga oo xora, fikirkooda ay xor yihiin, isku duubni helay ayay tashadeen, tacabkaana way sameeyeen. waxaan leeyahay bulshada centerka cadaada 100% way ku mahadsan yihiin. waxaan u soo jeedin lahaa bulshadan ku nool centerka cadaada horumar la taabto ayaa dhaqaajisan. waad ku mahadsantihiin marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waan idinka mahad celinaynaa. waxaan leeyahay tallaabo aad qaado waxa wacan inaad hore uga sii qaadaan, ammaanna waad ku mudan tihiin, waana hantigiinni iyo waxaad qabsateen wax kasta inaad halkaa markaa horumarka ka sii wadaan oo ka sii laban laabtaan. waxa weeyaan annaguna ka xukuumad ahaan waxaan diyaar u nahay maadaama ay tahay bulsho wax qabsatay inaan awoodda annadii la garab taagnaano mar kasta. gudahaan shacabku waxay sheegayaan inay faa'iido weyn ay ka heleen dugsiga sare ee laga dhisay centerka cadaada. for Africa daraasad laga fuliyay dalka Israel ayaa tilmaamaysa in tallaalka loo yaqaano Pfizer uusan awood u lahayn nooca fayraska keena COVID-19 ee lagu arkay dalka Koonfur Afrika. kadib markii dalkaasi Koonfur Afrika lagu arkay nooca fayraska loogu yeero B135 uu durba bilaabay in uu ku faafo wadamada kala duwan ee adduunka. daraasadaasi waxa kale oo ay muujisay in nooca fayraska COVID ee ka jira dalka Koonfur Afrika uu tiro ahaan yahay 1% marka loo eego noocyada kala duwan ee fayraskaasi ka jira dalkaasi. dadka iyagu qaatay labada nooc ee tallaalka laga bixiyay Koonfur Afrika ayaa marka loo eego difaaca jirkooda ee COVID-19 waxa ay iska sareysaa 8 jeer kuwa aanan qaadanin tallaalka.
wararkaygii galabnimo ayaan ku guda jirnay dhanka Iran saraakiisha dalka Iran ayaa waxa ay sheegeen in weerar lagu soo qaaday howlaha ay wado fidinta nidaamka nuclearka warku waxa uu tilmaamayaa in nidaamka fidinta nuclearka ee laga fuliyay goob loo yaqaano Natanz in weerarka lagu qaaday hal maalin kadib markii ay Iran shaacisay xarunta cusub ee kobcinta macdanta uraniumka ee meeshaasi ay ka dhisteen inkastoo saraakiishu ay sheegeen in cidda weerarkaasi soo qaaday iyo in uu fal argagixisnimo yahay iyo in kale haddana warbaahinta Israel waxa ay tabinayaan ama ay sheegeen inuu yahay weerar nidaamkeeda kombiyuutarka lagu qaaday ee loo yaqaano cyberka wagaag warkii galabnimo waa naga intaan soo gabagabayn qodobada wararka ugu dookaroon warbaahinada kala duwan ee gaarka loo leeyahay ayaa ugu baaqay asxaabta siyaasadeed inay ka faa'iideystaan ama sida ugu habboon uga faa'iideystaan waqtiyada ama saacadaha loogu talagalay inay ka baahiyaan oo looga doorasho daraasad laga fuliyay dalka Israel ayaa waxa ay tilmaantay in talaalka loo yaqaano Pfizer uusan awood u lahayn nooca fayraska keena COVID-19 ee lagu arkay dalka Koonfur Afrika. wagaag warkii telefishinka qarankana waa naga inta waad ku maasantiin daawashadiina dhankayga nabadi ayaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan ayaan idin rajaynaynaa warbaahinta qaranku mar kale waxay idin leedahay maadaama bari uu soo galayo Ramadaan Kariim dhankayga